deeqdan raashinka waxay ka timid hay'adda samafalka madaxtooyada Somaliland waxaana loo qaybiyay barakacayaasha ku sugan deegaanka Seemaal ee gobolka Awdal madashii deeqdan lagu qaybinayo waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta Somaliland Professor Ismaaciil Muumin Aar la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha Somaliland Marwo Amaal Xaaji Axmed Miisaan gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee Somaliland gudoomiyaha gobolka Awdal iyo xisaabiyaha guud ee Somaliland waxayna mas'uuliyiintan kala duwan falanqeeyeen deeqdan raashinka ah cid ay ka timid iyo sida ay u qaybiyeen waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa waxaan maanta halkan idinku guddoonsiinaynaa deeq raashin ah oo ay idin wado bisha cas ee Somaliland oo idin soo direen bisha cas ee Iran waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada Baki waxay caawinayaan si toos ah uga timiday xafiiska samafalka ee madaxtooyada waxaana si toos ah noogu soo dhiibay marwada madaxweynaha Somaliland oo tiri waa inaad iga gaarsiisaan barakacayaashii colaado iyo abaaruhu ay ku barakaciyeen deegaanka Seemaal degmada Baki marka waxaan u sheegaynaa inaan maanta halkaan taaganahay tahay goobtii Seemaal ee ay dhibaatadu ka dhacday laftarkeedii dadkii barakacayaashiina ay idin muuqdaan wixii aad noogu soo dhiibteenna aan si fiican u gaarsiinay xafiiska samafalka madaxtooyada mar walba wuxuu diyaar u yahay dadka danyaraha sida IDPs-ka ku nool ee maxay dadka barakacayaasha dadka maxay haydeenay abaaraha ay saameeyeen dhammaan wuxuu diyaar u yahay mar walba facekan waa facekii horeeyay maanta goobtan lagu bixinay waa Saameel raashinkaas oo maanta 360 qoys raashinkaas oo markaa ka kooban baasto bariis saliid kalluun iyo digir waxa kale oo hadeejan dadkana ku booreenay inay iyaguna ilaaliyaan aad uga shaqeeyaan wixii nabada si la isku yimaado dadku la isku soo dhawaado marka waa ilaahay mahadi waan arkana maanta sidii loo qaybshay waa si hufan waa sidii loogu tala galay maanta dadkii la soo gaarsiiyay dadka halka ku arkaysaan oo maaragtay dadkii ku barakacay dagaaladii halka ka dhacay iyo abaarihii ba saameeyeen horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa aniga oo ah gudoomiyaha gobolka Awdal dhimaatinka leedii in la idin soo xasuusto ayaa ka qaaday waxa arintaa leh dawladii Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo marwadiisa way idin xasuusin dibtayda gaadheen salaadna waan bixisay Cabdi Fataax Axmed had wanaag news magaalada Boorama